wayna damqaysaa runtii in la yiraahdo iyadoo dhib ku dhacday ay iyaga kala qaybsan yihiin arintan khilaaf bay ka dhaxeeya cirrayaadiga anigu inaan yaabay baan isku nahayo wax alaali wax naga dhaxeeyna jirto xildhibaan Barkad Shaac Batuun oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland isla markaana ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo shir jiraayad maanta ku qabtay xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland wuxuu beeniyay waran maalmihii u dambeeyay soo baxayay oo sheegaya in khilaaf soo kala dhex galay mas'uuliyiinta sare xisbigaasi khaasatan Cirro iyo gudoomiye Xirsi geesta kale isagoo hadalkiisii wata wuxuu madaxweynaha Soomaaliland ku amaanay doorkii nafurnimada lahayd oo ka qaatay samata bixinta bulshadii dabku ku haleelay suuqa waahina magaalada Hargeysa wuxuuna madaxweynaha sheegay inuu ka tanaasulay khilaafka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaana uu madaxda Soomaaliya uga mahad celiyay deeqdii ay soo gaarsiiyeen sidoo kale wuxuu baaq u diray shacabka Soomaaliland culimada dalka guud ahaanba dalalka dariska la Soomaaliland wuxuuna ganacsatadooda ugu baaqay inay Soomaaliland ka taageeraan samata bixinta bulshadii dabku ku haleelay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa mushkiladda iyo masiibada maanta ka dhacday suuqa waaheen waa mid cid kastaba muradilaac iyo murugo ku raad qof kasto meesha tagaa ilmada inaanu xajisaneyn idinka soo duubay shacabka barta ku ganacsanayay daarahoodii baa dumay oo dabku qabsaday wixii dollar dhex yaalay weedikii arkay idinku soo duubayay dahabka la soo saaray wad arkayseen wuxuu dib maanta dambas bay noqdeen qadar ilaahay ba ku dhacay uma baahna muran uma baahna yooyootan uma baahna ficiltan dabka dhacay ee daaraha dumiyay ee dollarka baabiyay ee dunyada baabiyay ee dadka murugada iyo muradilaac ku reebay wuxuu u baahan yahay dadaalku xukuumaddu kuma koobna wuxuu u baahan yahay dadaal ay qayb ka yihiin qurba joogto ay qayb ka yihiin qolqol joogto ay qayb ka yihiin saxaafaddu ay qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan cod dheer shacabka ugu sheegaya waxaan cod dheer ummadda ugu sheegaya waxaan cod dheer kuwa mixnada iyo munaafaqada mushkiladda ka dhaxwada ugu sheegaya anoo afka shacabka Hargeysa ku hadlaya arinta dhacday ee mushkiladda madaxweynuhu dhaliil kuma laha maayirka magaaladuna dhaliil kuma laha mucaaridkuna dhaliil kuma laha waxa dhaliisha yeelanaya markaynu midnimadeena weeyno waa inaynu midnimo kaga baxnaa qadiyadan waa inaynu midnimo kaga baxnaa mar labaad iyo mar saddexaad waa inaynu midnimo kaga baxnaa wax ka weyn baa inoo yaala dalka doorashooyin baa uu diyaar garoobay tii madaxtooyada iyada iyo qorshaheeda iyo sida loo qaabeynayay waa inay siyaasiyiintu culays ka saaraan arinta suuqa waaheen ka dhacday waxaan ku codsanayaa shacabka waxaan ku codsanayaa cid kasta wadwadkeeda iyo warkeeda in bartaa lagu xiro oo dadka dhibaatada ku dhacday walaalnimo loo muujiyo dadka meesha jooga ee bahda suuqa waaheena idinka isku beela dadka suuqa waaheen ku ganacsanayo idinka isku beela idinka isku dana bahda suuqa waaheen baa la yiraahdaa beesha suuqa waaheen baatiin haday qabyaalad iyo qabiil noqotana idinka beela yaan la kala qaybinin yaan quwadiina iyo dhibteedu ku dhacday dib idinka fidna la idinka dhaxaboorin midnimadiina iyo wada jirkiina muujiya inta arinta suuqa waaheen waxaan jeclahay soo noqnoqoshadeeda iyo wadwadkeeda in barta laga hado qolada xilalka xukuumadda ka haysa inay mucaarid u jawaabaan mas'uuliyadoodu ma waana shacabka u shaqeeyaan arinta suuqa waaheen ka jawaabisteeda iyo wadwadkeedu مسؤولينta xilalka xukuumadda haya shaqo shicib baa idin taalo masiibada lagaga baxayo waxa idin taalayna tayeysaan dibdimiska ciidanka dibdimiska ee shalay toona masiibadii state house ka dhacday ilaahay inaga badbaadiyay inaad qorshaheedii keentaan idinka xukuumadda inaad wadooyin ka furtaan xaafadaha ay suwantaa inaad intu labaad ka hor tagtaan inaad qaranka qorshihiisa aad dhigtaan laakiin mikrafoon kolba inaad uga jawaabtaan xisbiyada mucaaradka maaha idinkuna taas shaqo ka ballaaran baa idin taalo waxaan bartan jeclahay inaan si sharaf milge iyo maamuus loo ugu mahadnaqo dalalkii gurmadka inoo fidiyey dowlad deegaanka ismaamulka Soomaalida madaxweynahooda golihiisa wasiirada shacabka waxaan uga mahadnaqaynaa gurmadkii iyo gargaarkii iyo gaadiidkii habeenkii dabka Hargeysa dhacay
ayna la soo gaadheen uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha mubashir ninka la yiraahdo ilaahay khayr badan haydi siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro waxaadna tusteen haddaanu shacabka Soomaaliland nahay haddaanu xisbiyada nahay haddaanu xukuumadda nahay haddaanu golayaasha qaranka nahay inaadna jeceshihiin inaad walaaladaya tihiin inaad nala dareenyo duruuf tihiin inaad dabkayga ka damqateen ilaahaydu kuma keenay maalinta masiibadu ku dhacdo garabkiina iyo gaashaankiina noqon doona waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo qaaraan kii suuqa ka soo qayb qaatay waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo oo bartan maanta aan ka amaano madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha geesinimadu sameeyay iyo sidoo uu gudoomay lacagtii xaqa aynu lahayn ee dawladda Soomaaliya ayna soo siisay sidoo ugu mahadnaqay walaalaheen iyo dawladda Soomaaliya madaxdooda ama madaxweyne farmaajo noqoto ama ra'iisul wasaaraha noqoto ilaahay wuxuu leeyahay hal jazaa'u al-ihsaan illa al-ihsaan madaxweyne waad ku mahadsantahay go'aanka aad qaadatay inaad hantida ummadda Soomaaliland aad u keentay inaad gobonimada aad samaysay inaad siyaasadii iyo xifiltankii Soomaaliya naga dhaxintaad meel iska dhigtay aad wanaaga samaysay waan kaaga mahadnaqaynaa waxaan jeclahay inaan bartan baaq uga diro oo isagana u mahadnaqo dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraheeda maalintu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inaga khaldan yahayna ninka la hadlay anigu waxa maalintu wanaag inoo sameeyana waxaan leenahay waad mahadsantahay ra'iisul wasaare maanta mar haddii aad wixii xaq Soomaaliland ay ku lahayd aad garateen oo shacabkii Soomaaliland adantoodii iyo duruuftoodii aad dareenteen aad iyo aad baad u mahadsantiin oo arrimo kale oo siyaasiya ka hadlimaan baaqaygu waxa weeyaan culimada Soomaaliland laf dhabarta bulshada Soomaaliland weeyaan waxay dadka baraan cilmiga waxay joogaan goobihii cibaadada kelmadooda waa la maqlayaa dadaalku wuxuu ku socdaa xukuumadda wuxuu ka socdaa xisbiyada wuxuu ka socdaa saxaafadda saddexdaasaad moodaa inay aad uga shaqaynayaan suuqi waaheen laakiin waxaynu doonaynaa doorkii culimadu cilmiga dadka ay barayaan marka laga yimaado waxaanu jecelnahay inay masaajidada qaadhaan yaboohoo weyn ay ka sameeyaan maalinta jimcaha ay nagu soo socotaa waxaan ka codsanayaa culimada Soomaaliland ee waaweyn iyadoo dadaalka qayb ay ka ahaayeen oo gudida abaaraha Sheekh Barbara uu ku jiray oo culimada Sheekh Dirir iyo Sheekh Maxamed Cali Galiye Sheekh Maxamed Aadan iyo culimo fara badan ay ka hadlayeen masaajidka calimataan iyo aad looga hadlayay dhibta suuqa ka dhacday haddana waxaanu doonaynaa qaaraanka inaad qayb ka noqotaan oo masaajid kastaba lacag weyn ummadda ay uga soo baxdo waxaan codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee joogta dibadda iyo dalka ganacsatada Kenya joogta ganacsatada Muqdisho joogta ganacsatada Djibouti joogta ganacsatada Itoobiya joogta dawladihiina dadaal bay sameeyeen ganacsatooy waan idin baahannahay maanta haddaanu shacabkii Soomaaliland nahay gargaar baan idinka baahannahay waxaan idinka baahannahay inaad nagu garab istaagtaan inaad ummaddeeda waxaad la qabataan suuqa ku gubtay marka ganacsatada Muqdisho ganacsatada Djibouti ganacsatada Kenya iyo dalalka kale jaarka waxaan leeyahay waan idin sugaynaa gacmo furan ku soo dhawaada waxaad noo keenaysaan noo keena hay'adaha caalamiga waxaan xukuumadda ugu baaqayaa inta ay ka badan inaan la sugi karin dunida waxaan u sheegaynaa inaanay dhibtan aydu nagala qayb qaadanaysaan project la soo qortay iyo mashaariic la raadiyay aan u baahnayn waxaan u baahannahay gudida heer qaran maayirku uu hogaaminayo wasiirka diinta iyo waqaafta hogaaminayo xubnahaas fara badan ay ku kulmeen inay dunida iyo hay'adaha caalamigu wixii deeqay hayeen degdeg ay ugu dhiibaan inta in ka badan in xukuumaddu sugtana ma aha xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay go'aamo adag dul dhigto hay'adaha deeq bixiyaasha sheegta uma baahnin booqasho uma baahnin ka dul hadal dadka masaakiinta waxaan u baahannahay in wax lala qabto ugu dambayn waxaan baaq dheer u dirayaa ummadda Soomaaliland masiibo markay dhacdo waxa lagaga baxaa wadajir waxa lagaga baxaa walaalnimo waxa lagaga baxaa midnimo waxa lagaga baxaa qalbi samaan uma baahnin maanta inaynu isku kala abtirino uma baahnin inaynu qabiil iyo qolo kala noqono
uma baahnin xisbiga xukuumadda inaynu kala noqonno waxaanu u baahannahay si qalbi taabad leh inaynu dadkeenna dunyadoodii dabkaasi ka baabiyey aynu dareen wanaagsan tusno aynu u dadaalno taasaynu shacaba u baahannahay shacbow taasaynu u baahannahay wayna damqaysaa runtii in la yidhaahdo iyadoo dhibi ku dhacday ayay iyagii kala qaybsan yihiin xisbigayga waan jecelahay ka mid baan ahay midhihiisii baan ahay meeshaan ka soo baxay weeyaan laakiin maanta arrin xisbi kamaan hadlayna arrin qaran baan ka hadlayay baa qaran baan dirayey arrintan khilaaf baa idinka dhexeeya ciraya adiga ciraya anigu inaan iyo aabihii baan isku nahay oo wax alaali wax naga dhexeey ma jirto warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa